addoonku inuu ogaado meel kastoo uu joogiyo waqti kastoo uu nool yahay iyo xaalad kastoo uu ku sugan yahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu og yahay. addoonku si aanu ilaahay u caasiin wixii ka dhacayna si dhaqsa uga dhexbaxo uga toobad keeno waa inuu naftiisa xusuusiyo nicmooyinka ilaahay uu siiyey. waxalaala waxaanu nicmo haysanno ee inoo muuqdaynu ognahay iyo intay naga qarsoon bayaa ina siiyey wadda uu inoo soo mariyey cid uu inoogu soo dhiibayba allahu subxaana wa tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah. dharka markay cadceeddu ku dhacdo dabayshu ay marto maydhista lagu badiyo wuu humoobaa. iimaankana khaladaadka iyo gafka iyo macaasida addoonku uu gelayaa markay ku bataan isaga laftiisu sidaasoo kale u humoobaa. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم وأطيعوه في أوامره ونواهيه وتوبوا إليه من جميع الذنوب والآثام والخطايا تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحي أبوني إنا نودعنا أمر كيسا قادنا وحي نودي دينا إنا نكتغنو آي نكديرانو إن بدن بار انت نوعا سي حسكيدو كسو نغنغض إلهي كتاب كيسا يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعتراض بدن إلهي سبحانه وتعالى دوني سوحي وغيريا inay wadadiisa maraan ay ku toosnaadaan sida uu doonayay raali gelinaysa inay u noolaadaan. haddii ay gafaan ay khaldamaanna ilaahay inay u soo noqdaan oo rabbi subxaana wa tacaala ay u toobad keenaan. in badan oo ka mid ah addoommada ilaahay waxay dayaceen wax ilaahay uu faray oo uu ku waajibiyey. qaar kalena waxay sameeyeen wax ilaahay u diiday oo ka mamnuucay oo aan dan u ahayn adduun iyo aakhiro toona. arrinta noocaasina waa arrinta magaceedu uu yahay almacsiya ama addambu. waa ilaahay oo amarkiisii la khilaafay wuxuu yidhi daayo oo ka tagana la dayn waayo oo laga tegi waayo. in badan oo ka mid ah addoomaha ilaahay caasiya waxa ay dareensan yihiin khalad inay ku sugan yihiin iyo xaalad aan wanaagsanayn oon dan u ahayn. waxaa qalbigooda ku soo noqnoqonaya dembiga iyo macsiyada inay ka tagaan oo naftooda ay ka daahiriyaan oo ay ka nadiifiyaan. haddana arrinta noocaasi waa ku culus tahay naftooduna kuma adeecdo oo kama yeesho macsiyada inay ka tagaan waa kusii dhegan tahay waana macaansanaysaa. arrinta noocaasi waxay ku dhalinaysaa qofka muslimka ah inuu isweydiiyo ما الذي يعينني على ترك الذنوب والمعاصي؟ maxaa igu caawin kara ii fududayn kara igu kaalmayn kara macaasida inaan iska daayo oo aanan samaynba marka hore wixii iga dhacayna inaan ka tago aan ka dhex baxo ilaahayna subxaana wa tacaala uga toobad keeno. su-aashaana jawaabteeda waxaa laga helayaa ilaahay kitaabkiisa alqur'aan alkariim iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa ku xusan asbaabo tiro badan oo khudbad iyo 2 iyo 3 haddii la faahfaahiyo la sharaxo aan lagu koobi karin. waxaan se isku dayi doonaa biidni illaahi subxaana wa tacaala dhammaanteenba inaynu xusuusiyo waa dembaabnaa waanaynu khaldannaa. wax ilaahay nagu faral yeelo waa ka gaabinaa. wax ilaahay subxaana wa tacaala inoo diiday uu inaga xaaraam yeelayna waa inaga dhacaa waa samaynaa. waxay nagu caawiya inaynu nafteenna ka adkaano oo macaasida iyo khaladaadka iyo gafka ay doonayso aynu ka celinno inuu ka xakamayno wixii ka dhacayna inaynu ka tagno inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno. qodobka koowaad wuxuu yahay addoomaa ilaahayow muraaqabatu llaahi subxaana wa tacaala walistixyaau minhu. addoonku inuu ogaado أنه في مرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى
meel kastoo uu joogiyo waqti kastoo uu nool yahay iyo xaalad kastoo uu ku sugan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu og yahay rabbi inuu arkayo wax kastoo uu ku dhawaaqo miduu hoos u dhigiyo miduu kor u qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maqlaayo am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun waxay u malaynayaan waxa ay qarsanayaan iyo waxa ay ku faqayaan inaanaan maqlahayn ilaahay wuxuu yidhi waan maqlayaa weliba taa waxa dheer waxaa la jooga rusushaydii waa malaa'igtii wax ka qoraysay waxa ay ku hadlayaan oo dhan iyo waxa ay samaynayaan oo dhan diiwaangelinaya u qoraaya ilaahay wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay magacyadiisa inuu ka mid yahay alraqiib ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid xaalkiina la socda og arkaya oo maqlaya wax arrinkiina ka midiina marnaba aanu ka qarsoomi karin taa garashadeeda midhaha laga goosanayaa ha noqoto in mar kastoo aad tidhaahdaan hadla ama wax sameeya ama wax ka taga inaad nafta u sheegtaan aad xusuusisaan allihii subxaanahu wa tacaala abuuray inuu maqlayo o arkayo arrinkeeda sirteeda iyo caadkeedana inuu og yahay waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuh ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa og yahay waxaa naftiina ku sugan iyo waxaad qalbiyada ku haysaan intaydaan kuba hadal oo aydaan samayn waartaasi sabab ah idinku noqoto ilaahay inaad ka digtoonaataan wax ilaahay uu jecel iyo raalli gelinayo mooyaane wax kale aydaan samayn isla markaana aydan ku hadal arrinta noocaasi iyo iimaanka iyo yaqiintaasi waa inay ku dhaliso qofka muslimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka xishoodo oo naftiisu marka ay tidhaahdo waxaa ku hadal wax ilaahay uu diido rabbi ka cadhaysiinaya ama ay u qurxiso inuu sameeyo wax ilaahay u diiday ama ay u fududayso ka tegista wixii ilaahay uu ku faral yeelay ha xusuusto ilaahay xaalkiisa inuu la socdo taasina ha ku dhaliso ilaahay si dhaba inuu uga xishoodo oo uu ka xishoodo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka maqlo waxaanu jecelayn ama uu ku arko waxaanu jecelayn aanu raalli ku ahayn ama uu ku arko meel aanu ilaahay oggolayn ama ilaahay uu ku ogaado wixii uu diray uu ku faral yeelay inuu ka tago waa arrin weynoo la odhan karo waa arrinta ugu weyne addoomaha ku kicisa wixii ilaahay u diray inay sameeyaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diidayna inay ka fogaadaan oo ay ka dheeraadaan wa acdamu naahin wasaajirin wawaacidin lilcibaad ilaahay kitaabkiisana aad bay ugu soo noqnoqotay arrinka labaad wuxuu yahay ilaahay jacaylkiisa qalbiga in lagu badiyo oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala jeclaada ma caasiyo haddii ay ka dhacdana jacaylka ilaahay wuxuu ku kalifaa macsiyada si dhaqsaa inuu uga dhex baxo ilaahay u toobad keeno ilaahayna waxaa ku dhan wixii lagu jeclaa oo dhan magacyada u wanaagsan buu leeyahay sifaadka u fiicane u quruxda badan buu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid ah alixsaanu ilaa cibaadih addoomihiisa inuu ixsaan sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala waa almuncimu alxaqiiqi waxaa nicmo aad tirsanayso oo dhan iyo in badan oo kaleoo kaa qarsoon ilaahay baa ku siiyey arrimahaasoo dhami qofka caqliga leh waxay ugu baaqayaan kuna waajibinayaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu jeclaado wa min almacluumi ya cibaad allah ana almuxiba liman yuxibu mutiicu qofka cid jecel ee damiir lihi cidda uu jecel yahay amarka ciddaa ma khilaafo waa ciddaasi aanay raalli ku ahayn aanay oggolaynna ma sameeyo ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa quluubta aynu ku korinno oo asbaabaha badiyana aynu la nimaadno arrinka saddexaad wuxuu yahay yaa cibaad allah alkhawfu min allahi subxaana wa tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo waman carafa cadamata allahi khaafahu wahaabahu ilaahay weynidiisa qofka si dhaba u gartay qalbigiisa ay gasho ilaahay subxaana wa tacaala waa ka baqa
rabbina waa ka haybadaystaa taasina waxa ay ku kaliftaa wixii ilaahay u diray oo dhan inuu sameeyo wixii ilaahay u diidu ka mamnuucay oo dhan inuu ka dheeraado وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلهي سبحانه وتعالى وحيري لبا الرموت الخوف من الله ونهي النفس عن الهوى المخالف لمراد الله إلهي سبحانه وتعالى إن لقبقه هي نفته إن لو ديده وحا أي دون إلهي سبحانه وتعالى أنه أقلين ونفته إن لقرهيبه ولو ديده وحا أي جعلي سنة معان سنة إلهي أنه أقلين ثمرات كذي من هذا وحا أرنتاس وحي نقونيسا ميركد الشيء بقاها الدونك إلهي سبحانه وتعالى وكبقانيه qofka ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa gartaana ilaahay waa ka baqa waana ka haybadiista wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka waramay inuu ilaahay u ogolaaday inuu ummadiisa uga waramo can diig maraqat rijlaahu al-ard as-sabi'ah wa unuquhu aw ra'suhu muthniyatun tahta al-'arsh culimada qaar waxay yiraahdeen diigaasi ma kan shimbirta ay naqaanay waa malag magaciisa diig la yiraahdo waa makhluuqaadii aad u weyn lugihiisu dhulka ayay ka mureen qortiisa iyo madaxiisuna wuxuu soo laaban yahay carshiga hoostiisa inaga inooma muuqdo laakiin waa arin qaybi oo inaga qarsoon oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay wuxuu leeyahay subxaanaka ma acdamak إلهي بو سبحانه وتعالى وتصبيح صنعيه إلهي حمان إيا عيب إيا نقصان ودنوات كهوفنتهاي صفات إيا تلمانكوما الله ربي ويني ده إلهي ويني دي سايو قلبي سشاهدي هو كمر قاتك عام إلهي بو سبحانه وتعالى وتشوابي ووحو ليهي ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا ويني ده إذا هذا قوصتي أدقرتي مقرا قفك يقول دارتي سقو بين شيء ما معنى ذلك يا عباد الله أرنتها معنى ذو محيا الدوما إلهي معنى ذو حوية الدوما إلهي عاصية وحي إلهي كحارة انتمية كهضلية أما الصمينية وحي إلهي كواتشمية ضيعية كتقية وحي أرنتها سكدلت إن أنا إلهي ويندي ساقوم با وأيهين جاهلون بالله جهلا مطبقا كوا إلهي سيدا ما يستيران جاهلين وغا أما بس نقص معرفة الله في قلوبهم إلهي قرشديس يا قرشد وينديس أيام قلوب تودا كل ما يستيرنين وإنتي واجب كايدة لقربي أيام قلبي قودا كودا تشيرين تاسي كدلت إلهي سبحانه وتعالى عاصية وإلا لو عرف العبد عظمة الله حق المعرفة فإنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى أدونكو إلهي وينيدي ساتو صدبا وقرتو إلهي سبحانه وتعالى عاصي ماي وحي وينيدا إلهي وقوم صدعي كعلي ليس إلهي أمر كي سيد خلاف وحي ودي ليسي كور استاقي سوحي إلهي كحرام يالي إنو صمي أرنك أفراد وحيا يا عباد الله أدونكو سيانو إلهي وعاصين wixii ka dhacayna si dhaqso uga dhaxbaxuuga toobad keeno waa inuu naftiisa xusuusiyo nicmooyinka Ilaahay uu siiyay waxa waxaanu nicmo haysano ay noo muuqdeen oo ognahay iyo intay naga qarsoon baya in siiyay wadoo inoo soo mariyay cid uu inoogu soo dhiibayba Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah waxa nicmaydin ku sugan waa mid xagga Ilaahay ka timi weey وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلهي بيدن هو نعموين كيس نعموين الموقضة يكوى قرصون با ضميرك الصح داهي هي عقلك بدقى بوحو كان صريا عدة إحساني وناكو صميسي كون نعميسي وحلالي إيا وحا نفتاضو أي كفر حيسكو سيسي وحا دبسان يسكادو القادة وضع حنوستياكو شافية الله سبحانه وتعالى ياكو أرزاقه الله سبحانه وتعالى مركا دبنتها اياد بريدا
ودعاء كأقبل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله سبحانه وتعالى يقول كيسي كدل صعاتات سمديسي هرسانيسا يادوك سجين تيسي كنا يفسانيسا ودقيقة البريق سياداد ويدو الدمان سامها لسأد قليسا cuntadii aad cuntay qashinkeedii yaa kaa soo saara dhib intee leeg baa ku gaadhaya haddii daqiiqad kaadidu kugu istaagto allah waxaasoo nicama ku siiyey iyo kuwo kaloo badan oo inaga qarsoon miyuu mudan yahay oo daw ay tahay addoomaa ilaahayow inaynu caasino wuxuu yidhi sameeya aynu iska baalmar wuxuu inoo diidayna si badheedha inaynu u samayno arrinta noocaasiya caqliga iyo damiirka saxda baa diidaya intaan sharci iyo diin la gaadhin walihaada qofka u fiirsada ilaahay kitaabkiisa waxa uu muuqanaysa arrimaha u waaweyn ilaahay addoomihiisa uu ku waaniyo hadduu tawxiidkiisa ugu yeedhayo oo shirki uu ka reebayo iyo hadduu adeecitaankiisa ugu baaqayo oo macsiyo uga yeedhayo arrimaha ugu waaweyn ilaahay addoomihiisa uu ku waaniyo waxaa ka mid a tadkiiruhum binicamihi إلهي إنه حصوصيه نعموين كأدومه سوسيه بل آخر سورة النحل سورة النعم وسورة كور رميسان نعموين كإلهي بني آدم كوسيه وحاوب ضنا أدومها أي فريسان وإلهي الكليين وكلية عابدان وأمر كيسا إقاطان مركان نفط إن نعموين كإلهي الحصوصية وحيوصل بتاعدي نعم كاسيسي سي إنه يهدي عديه وقالسته ay kana xishootay inay caasida markiisa ay khilaafto arrimaha adoonka ku caawinaya ku kaalmaynaya inuu nafta ka xakameeyo oo ka celiyo macaasida wixii ka dhacayna si dhaqso degdeg inuu uga toobad keeno waxa kamida tadakkur al-maut والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى adoonku inuu naftiisa xusuusiyo inuu dhiman doono iyadoo geeridu ah wax bani aadamku ay arkaan galin horiya galin daba qaar baa la aasa magaalo iyo deegaan kastana xabaala ku yaal marba qaar baa buuxsamayo kuwa kale looga guuray ayaa haddana ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay wuri kullu nafsin daa'iqatul maut nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis tiro badan oo kaga hadlay waa maxay ujeedadu geerida lafteeda addoomaha lagu waaninaya وجيريدو waa shay faasila noloshana adduunyo iyo nolosha ku xigta waa alxayaatu barzakhiya nolosha qabriga tan adduunyo ta qiyaamo u dhaxaysa labadaasi ayay kala saartaa wixii noloshana adduunyo adoonku kala tagay ayaanu nolosha kala ula guura abaalmarintuna halkaas ay ka bilaabantaa ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول عثمان بن عفان وكوريه قبره هو أول بيت أول منزل من منازل الآخرة وقرق أوريه قريه آخرة كمذا أدو هلك أدونك وحوانا أكسن كل ما إنت كدن بيسانا كسر في عن أدي هلك نباتية كديدي عذاب كل ما إنت كدن بيسانا كدرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحينا أمر حصوصنا أنت قاريدة إلينا بعضنا سيتلميذ وري عن أبي هريرة أكثر من ذكر هذه من اللذات كمع معان كتشرى مع معان كان يرى الدلال كان أدوية قفك ككلا تشرى كلا كحية وموت كي قاريدة حصوصنا أنت سبضيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذات هاي قف لما شذا آد حصوصا وحكدم بياد صايق هذا رسم وعباداتك هي طاعاتك هي خيرك كنت دارسة waxaad iska ilaalinaysaa nolosha geerida ka dambaysa waxa ka xumaynaya wixii ka dhacay si aan geeridu kugu soo gaarin si dhaqsaabad uga toobad keenaysa ila goorad dhiman doonta garan weys ilaahayna wuxuu ku amray inay geeridu ku timaado adoo ilaahay u hoggaansan wala tamuutunna illa wa antum muslimun taasina waxay ku suurtoobaysaa xaaladaha oo dhan adoon toosan oo ilaahay adeecayeen ahaato xusuusnaanta geeridu saameyn weyn bay qofka ku leedahay noloshiisa
إياها بدقن كيس وحيابا قيرida lagu xusuustaana hareerahayna yaalaan waxa kamida xabaalaha in la booqdo dadka dhintayna loo duceeyo qofka nool tagayna xaaladda sugaysa uu ku xusuusto hadii inuu iimaan qalbigiisa ku jiro damiirkiisana waxay ka nool yihiin shaqi kuma jira arintaas inay iimaan u ziyaadinayso ya alla ka cabsi khaladaad iyo dambiye gafaf badan oo ku jirana ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keeni doono asbaaba waxa kamida ya cibaad allah tajdiidul iimaan iimaanku waa kordhaa waana nuqsaama waana baaliyooba sadarka in xiranay dharka markay cadceedu ku dhacdo dabayshu ay marto meedhista lagu badiyo wuu humooba iimaankana khaladaadka iyo gafka iyo macaasida adoonku uu galaya markay ku bataan isaga laftiisu sidaas oo kale uu humooba tajdiid iyo cusboonaysiin buu inooga baahan yahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri inna al-iimaana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fasalu Allah an yujaddida al-iimaana fi qulubikum iimaanku midkiin jawfkiisa iyo urku jirtiisa ayuu ku baaliyooba ومحل الإيمان والقلب أعماشنا وكفر عنها قيمنا إيمانك وكته سيدا مرضوا أيوه موضي وباليوضو إلهي كبريا إنه إيمانك يدين جديد يدين عصبانيسية إيمانك وحيابات جديدية قوية حوتية زيادية وبدين كو حوق بدنا حكم إذا إلهي حسيتان كيسي أمانتي سينات بطس يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا إلهي وحرين بدن إلهي حسن قال هوريا قال دنبابا وتصبيح صدر هريا هبين كان النبي يذكر الله على كل أحيان سيتر عايش حال ذي صورنا إلهي بحسن إلهي وحاماني الضوماء حالت كستي إلهي حسن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلهي وحلق حسن القرآن كأيا أقيم بضا أخرس كتابك إلهي إيمانك أقع عصبوران دون وحكم ذو حصوصنا أنت حصوص الشدى الجيردة إيمانك واد شديد الساعة وحكم ذا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كيساني آيات كيسان لقو قرنيين أضو فرصته إيمانك كورهاي وذيك أركضتك واحد هذا اختربان التجيء باريتان بان صمي تشيكين بان صوص صمين يا عافيمات نحن نصنص ما يهوان سفوبين ياهو وشركي سعود الرضا كيل علينا وحي لقاها لنا مسكد ويا أبو الدورية إيمانك إنها تاسي أمضا شركة دعوذ الكل عوحة وبدأ القارية وين بنتو الله عاصر وحي شقيستري إلهي وقالوا ارتقي الدورة لكن هدو إيمانكم إن قد انتوا خسارة الدنيا والآخرة وخسارة الدنيا آخرة أسبابا وحكم إذا يا عباد الله معصية فول حمد إذا يدبات هذه عاقبة حنا إلا هذا نفطين نشعر دل بالك قاعدة الدنيا آخرة وجعل الذل والصغار على من خالف أمر ابن محمد عليه الصلاة والسلام دل جياه الصين توحد دش لقى صار عدة أمر كي خلافته معصية صميصة الدنيا آخرة كد اللوبس عزة حاله بها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إيمانك وعملك صالح وكم دياعي التوبة دونها يكتر سنتها كم طيب مركا معصية وكد الليل سيكستود حولها استمعوا أما مدحاتها راتكي دلق معصية دش هذا أيوك مغلق سورة ابن القيم رحمه الله تعالى آخرنا إلهي مركز هرتك تايات دلوبي دونتا الدون كيغو محادي عاصي هذا كاد على الباب التوبة كفر حد التوبة كريم أسبابه وحكم إذا النفط إلا حسابية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والبري بعد من دونتا إلهي بلغو هرقين دورا نفط هذا الله حساب ترى إلهي محاد له هرتقس واحد كفر أحضان بس واحد كم ربوته ما واحد شعل يسطه بس واحد يبسطه هداد فرصة يسطه حسابي راس مالك حسابي وسمين تفر الذي يكتنسنا معاصي الذنوب
ربحي يا معاشا كحسابي ولما النفط هو شريك خوار شراكاتين ومن الشراكتين خيانة السنة بلانتهي هذه يا شهر إنكو أدوى أدوية تاقي وهذه يا شهر بعض الحساب تنتهي خيانة السنة تسكيل على السنة نفط وحي كخيامين يسوى الدين تالا يبد بعد ذا وحي يكون حدنيد آخره وديغانك يقولي قدام بي دارته قدام بي سمي الله دافياني جري وخسارها أدونك هالكا كدعا وياهي خسارها والضرر marka naftaada hada jeer gool u labax oo xisaabi maanta maxaad samaysay maxaad ku haash dadkii wanaagsanaa saasay ahaayeen haddii markaa dambiye ka dhacay ay naftooda ku ogaadaan waa toobad keeni jireen waxaanay ku dadaali jireen xasanaad wanaagiyo inay la yimaadaan lagaga tirtiro dambiyada ay khaladaadkaasi ay galeen inna alxasanaati yudhibuna as-sayyi'at ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu ka baryaynaa inuu ina waafajiyo inaynu noolaano sida ilaahay u jecel inaga doonayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nagu caawiyo dunuubta iyo macaasida ka tegisteeda an yuciinana calaa dalik نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميع الذنوب والخطايا وأن يكفر عنا كل السيئات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لكل خير اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لكل خير اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم علم جاهل المسلمين واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وانصر المظلومين المستضعفين المظلومين من المسلمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين